magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxaa shir jaraa'id ku qabtay mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha ee maamulka Hirshabeelle waxayna shirkooda jaraa'id kaga hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira wada shaqaynta kala dhaxaysa wasaaradda beeraha ee dawladda waddanka Soomaaliya warbixinta ku saabsan waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray wariyaheena Ibrahim Ali Nuur shirkan jaraa'id ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Hirshabeelle oo qabtay warbaahinta ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka kala dhaxeeya dhigooda wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sida loo maareeyo mashaariicda kala duwan ee soo gaaray Hirshabeelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay inaysan jirin hal wax qabad oo wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya ka qabatay Hirshabeelle isagoo sidoo kale tilmaamay inay jiraan taageero kala duwan oo ka yimaada hay'adda FAO lana soo marsiiyintooda badan wasaaradda beeraha dawladda federaalka Soomaaliya waxaad isleedahay wax alla waxay soo maray dawladda federaalka ee wasaaradda beeraha inaysan soo gaarin maxaa yeelay wax xiriir oo hoos ay nala sameeyaan male walax ay nagu soo agaasimaan male walax ay na weydiiyaan male hawadaas ay ka shaqeeyaan bis waxaan leenahay imaada wasaaradda beeraha xafiiskeedii shaqadana halkaas aan ka wadno si ummadda loogu wada shaqeeyo haddii kale noo daaya doorka wasaaradda beeraha iyo federaalka wasaaradda beeraha Hirshabeelle ayaa iskale arrimaha beeraha ku saabsan howlaheena noo daaya sida ugu talagalnay inay u dhaxanayaan doonina waxaa kaloo leeyahay wasaaradda beeraha ee federaalku waa wasaaraddeena inta badan annaga ayaa jecel inaan la shaqeyno hal shay oo soo agaasimeen oo ay wasaaradda beeraha Hirshabeelle la wadaageen wax qabada ma jirto marka laga reebo in hay'adaha deeqda bixiyo markaan codsiyo u dirno aan isku aragno meeshaas ayagana mas'uuliyadda Hirshabeelle sheeganaya ama midda qaranka waxaan leenahay walaalayaal waxaan diyaar u nahay la shaqayntiina balse naga daaya Hirshabeelle dawladda ayaa ka jirto idinkuna waxaad rabtaan Hirshabeelle ka hor sidaad u maamuli jirteen Hirshabeelle inaad u maamushaan dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle ayaa sheegay in si qaldan loo maareeyay matooro loogu talagalay qaar ka mid ah degmooyinka Hirshabeelle qaarkood qaladaadka dhacay ay ka mid tahay qorshahaasi matooradaasi waxaan ka bixinay Balcad waxaan ka bixinay Jowhar waxaan ka bixinay Mahadaay waxaan ugu dambeeyay Buloburti iyo Beledweyne ay ahayd qorshe xumo uu sameeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo ku takrifalid awoodeed ayay ku dhacday in matooradii loogu talagalay Buloburti ay ku dhamaadaan Beledweyne Ibrahim Ali Nuur TV Universal caasimadda Hirshabeelle Jowhar way hadda wadaal wiilka kan gala socotaan waa telefishinka caalamiga Universal